أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أو wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta naga mudan oo kusoo dhawaada barnaamijka baradalkaaga hooyo intuu hawada ka baxayo maanta waxaad ku dhageysan doontaan insha Allah ciwaanada kale ah waayihii ganacsiga Soomaaliya taariikhda gobolada dalka qaarkood anaga oo xusi doono kuwa kalena anaga ku xusi doono barnaamijyadeena soo aadan insha Allah markale kusoo dhawaada barnaamijka baradalkaaga hooyo waayihii ganacsiga ee Soomaaliya waxa uu soo ganacsi tagi jiray dunida oo idil waayo Soomaaliya waxa ay qani ku ahayd xoolaha beeraha iyo waliba kalluunka dadyoogii xilligaasi u ganacsi tagi jiray Soomaaliya waxa ay ku naaneysi jireen magacyadan soo socda dhulkii udgoona dhulkii eebe iyo waliba Geeska Afrika iyo waxyaabo kale haddaba qiyaastii xilligaasi la sameeyay Soomaaliya waxa loo kala qaybiyay 4 qaybood oo kala ah 60% dadka Soomaalida inay yihiin xoolo dhaqato reer miyi ah 20% dadka Soomaalida inay yihiin beeraley 15% dadka Soomaalida inay yihiin reer magaal kuwaasi oo ku tiirsan ganacsiga halka 5% ay yihiin dadka Soomaaliyeed kalluumaysato taariikhda gobolada dalka haddaba markii Soomaalidu ay gacanta ku dhigtay xorriyadeeda waxa ay kala ahaayeen gobolada waqooyi iyo kuwa koonfureed gobolada koonfureed waxa ay kala ahaayeen goboladani soo socda gobolka Banaadir gobolka Jubbada Hoose gobolka Shabeellada Dhexe gobolka Hiiraan gobolka Mudug iyo waliba gobolka Bari muddo dheer kadib dalka waxaa la wareegay kacaankii militariga waqtiga kadib waxaa la qaaday ololihii horumarinta reer miyiga dhamaadkii 80meeyadii kacaanku wuxuu magacaabay 7 gobol oo dheeraad ah tirada guud ee gobolada xilliga waxa ay noqdeen 15 gobol haddana muddo kadib waxaa lagu soo kordhiyay gobolka Jubbada Dhexe haddana dib waxaa lagu soo kordhiyay gobolada Awdal iyo Sool marka wadarta gobolada waxa ay noqdeen 18 gobol waxaana ku faaqidi doonaa barnaamijyadeena soo socda insha Allah dhawaada barnaamijka baradalkaaga hooyo waxaa maantay faaqidi doonaa oo ka hadli doonaa haddii uu eebaweyne raalli ka noqdo gobolkani Banaadir ee caasimadda dalka Soomaaliya Banaadir waa xudunta Soomaaliya macnaha waa magaalo madaxda Muqdisho oo ah caasimadda Soomaaliya Banaadir dhaqaalihiisu waxa uu ku tiirsan yahay ganacsiga waxaa ku yaali jiray warshado kala duwan sida warshadii caanaha warshadii birta warshadii baastada iyo warshadii sifaynta batroolka iyo kuwa gaarka loo leeyahay haddaba Banaadir waxaa ku yaalo xeeb aad u dheer taasoo marta degmooyin fara badan waxa ayna kala yihiin degmooyinkani Dharkiinley Wadajir Xamar Jajab Xamar Weyn Cabdilcasiis Shibis Shangaani iyo waliba degmada Kaaraan haddaba degmada ugu qadiimisan waa degmada Xamar Weyne degmadii ugu dambeysay uu magacaabo kacaankana waxa ay ahayd degmada Dharkiinley ee gobolka Banaadir sidoo kale gobolka Banaadir waa gobolka ugu yar gobolada Soomaaliya misna ugu dadka badan Soomaaliya waxa uuna ka kooban yahay 17 degmo gobolka Banaadir waxa waqooyi ka xiga gobolka Shabeellada Dhexe koonfurna waxa ka xiga gobolka Shabeellada Hoose halka bari ay ka xigto badweynta Indiya iyo Badda Cas bulshada ku nool gobolka Banaadir waa kuwa ilbax ah waxa ayna soo dhaweeyaan bulshooyinka kala duwan ee ka yimaada gobolada dalka waxayna ku soo dhaweeyaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir waxay isugu jiraan xoolo dhaqato kalluumaysato iyo waliba ganacsato Banaadir waxaa la isugu dhihi jiray qarnigii 19aad magaalooyinka Soomaaliyeed ee ku teedsan xeebta badweynta Indiya laga bilaabo magaalada Cadale laguna geeyo magaalada Baraawe waagu gumeysigii Talyaaniga gumeysan jiray koonfurta Soomaaliya Banaadir waxaa la isku dhihi jiray gobolada Shabeellada Hoose Shabeellada Dhexe iyo gobolka Banaadir
balse waxaa la bedelay sanadii 1982 markii dowladii kacaanka ay bedeshay sohodimada gobolada dalka. magaalo madaxda muqdisho la yiraahdo ee gobolka banaadir waxa ay ahayd degmo ka mid ah degmooyinka uu ka koobnaa ex banaadir oo ka koobneed gobolada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe sida degmooyinka Afgooye, Jowhar, Marka, Cadal iyo weliba degmada Baraawe. sidaas la mid ah, banaadir waxa ay noqotay gobol ka madax bannaan goboladii ay ku hoos jirtay ee kala ahaayeen shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe, ayadoo markaa la mid ahayd degmo sida degmooyinka Afgooye, Jowhar, Marka iyo Cadal iyo weliba Baraawe. gobolka banaadir waxa uu ka kooban yahay 17 degmo, waxa ayna kala yihiin degmooyinka Xamar Jajab, Xamar Weyne, Dayniile, Shibis, Sangaani, Dharkiinley, Cabdilcasiis, Kaaraan, Hiliwaa, Howlwadaag, Hodan, Waaberi, Warta Nabadda, Ex Wardhiigley, Wadajir, Yaaqshiid iyo degmada Kaxda ee gobolka banaadir. Bedka gobolka banaadir waxaa lagu qiyaasaa 1680 km². dadka ku nool gobolka banaadir waxaa lagu qiyaasaa ilaa 4 milyan oo qofood. banaadir waa gobol xeeb dheer leh, taasoo kheyraad fara badan ka buuxo, waxaana u shaqo taga dadyo fara badan kuwaasi oo u kala aada shaqooyinkooda. markaan hawada ku saaxiibnay iyo barnaamijkii baradalkaaga hooyo ee maantay halka haynu ekaado barnaamijka xiga sidaas iyo amaan Allah.